أعوذ بالله أن تدركوهن. أصحابتي مهاجرين تابوا كوها القبصة النبي وحولي شن الرماد مرك الله إذن كسر لذا إلهي بابا كما قال إنه إذن كسر لذا waxa ay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda taw horeysa waxa la yiraahdo faaxishadu qolo kuma dhex faafto oo ma muujistaan illa fasha fihim ad-da'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madad faaxishadu waa sinada iyo dadku is waxeeyay iyagoo wax meheraba isu haynin oo taasina ay iskaba badbadato oo meelaha ka bidhaamayso laga arkayo oo dadkiiba ka xishoon waayeen haday taasi dhacdo cudurruun baa ilaahay uu ku salidaa uu kamid yahay daacuunku iyo cudurro la garanba waayaba oo aslaaftoodii ama ummadahoodii hore aanay lahayn bal inta cudurro imika sinadii ka dhalatee sinadii markii gaaladu ay xayeysiiyeen cudurkii inagana wayna soo gaaray markaasaa daayartii qaar waxay gaadheen inay yidhaahdaan wiilashiiyo gabdhaha markuu inanta muslaxanayo waynu iska wadi haddaad uur yeelato anaaba kugu qaadan oo dee odayaashii umaan soo diri doonaayo ku qaatuunbaa la odhan uurkan inantan uuraysee waa dhaqankeenii soomaha xumaa waxaad arkaysaa mararka qaarkood magaalada hareeraheedoo tagaasi yaryar baa wada taagan waa meel cidlo ah wiil iyo gabadh baa kasoo boodaya haddii la isdul taago markaa cudurrada aidisku uu ka mid yahaan hore u jirin abaalmarin weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka edabta daran uu ku abaalmarinaya siduu rasuulku caddaynayo xigmaawii ilaahay inoo soo diray arrinta labaad walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati lma'uuna wa jawri sultaani calayhim dadku hadday khalkhal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaartu ay noqdaan qaar bila ammaano ah oo toodu unay u daran tahay oon tu ummadeen eegaynin oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunnada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen ilaahay wuxuu ku sallidaa abaara buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam iyo duruuf adag iyo dad madaxa oo jaa'iriinahoo xaq dabooloo xaq darro ku wada oo midiba uu ka daran yahay ka kale waar kii horaaba dhaamay kan bal aan ku celino doorashada bal inaynu ka soo rayno way ka sii dartay waa ilaahay baa daba socda dadka subxaanahu wa tacaala ilaa alla wuxuu uhi ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dadka dhabagal buu ugu jiraa iyagu iskama arkayaane isagu uu eegayaa kuurku ugu jiraa isagaa raadinayo daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubaha uu la dhacay dhibka ku ah ee u talinaya waa shaar iyaga loo tolay iyo waxay kasbadeen arinta saddexaad waxa weeye haday sakada bixin waayaan municu alqatra min as-samaa ilaahayna roobkiisu ka hakiya oo uu ka joojiyaa haddii aanay xoolaha mayeedhadu jirin ee aan dembi lahayna loomaba shubeen buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam أرنت أفراد وحوي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم هدي أيدت كاسب بلنك إلهي رسولك الجبيان وينغضان وعلى اللقبيال كي مدحلي بين بوشيغيا كي تاجر كي بين بوشيغيا كو كستوب بلشدة كمدي شرعي إلهي يوحي ballan laga qaaday ma fulinayo iyanaysu ma fulinayo ilaahayna uma fulinayo rasuulkana uma fulinayo ballan la'aan dadku meel lagu soo hagaaga male arrintaasi haddii ay dhacdana cadowbaa ilaahay uu ku sallidaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kafara maroojiya waxaanay ilaahay iyo rasuulka u seegeen ayuu ista kafara maroojinayaan arrinta shanaad waxa weeye wamaa lam taxkum a'immatun bikitaabi illaahi wayatakhayyaruu mima anzala allahu ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum hadday kitaabka ilaahay ku dhaqmi waayaan iyo waxyiga ilaahay uu soo dejiyay oo ikhtiyaarkooda ay ku qaadan waayaan ilaahay wuxuu ku sallidaa cuqubo uga dhigaa dhexdoodu isku sallidaa qabaa'ilkiibaa isdilaya kooxiibaa isdilaya dowladii yaryaraha xadka lahaa jaarkiibaa isdilaya shakhsiyaadkii saaxiibadii dad wada kala nooc ah oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaran la ayuu waxay isku dilayaana la garan waayay ayaa meesha ka soo baxaysa laakiin nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam
kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo tawfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa waxyigu ku jiraa lishariicati samaaxa shareecadu waxay leedahay macaan iyo waafajina leh iyo ilaahay isku soo dhaweeyo dadka marka laga amar qaato isaguna ummaddu isku ururiyaa marka dadkan kala firdhee faraaraha lana sababtaas ugu cambu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiix ibn maajah baa wariyay raximahullah idan marka arrintaa waxaynu ka arkaynaa inay waaqiceen aada uga muuqanayso mid shisheeyada intaynaan u gudbin sixidda la saxana waxaynu ku heli karaynaa barwaaqada iyo badhaadhaha uu nebi maxamed sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa isweydiin leh dhibaatooyinkan adduunka ka dhacaya cudurradan iyo duruufahan iyo waxa faraha badani dee gaalun kuma dhacaan caasiyoo keliya kuma dhacaan laakiin dad badan oo wanaagsan bay ku dhacaan oo awliye ah oo saalixiin ahoo maati ahoo dembiba gelin oo maxaa iyagana xaggee laga raacay iyana xaggee ka qodax qaateen xaggee laga helay waxaa jirta bani aadamka waxa ku dhaca adduunyada waa laba qaybood qayb waa cuqubo waa qofka caasiga ah cuqubo la marinayo qaybina waa ibtilaa imtixaan weeye ilaahay addoomaha uu imtixaanayo dadka wanaagsan dhibka ku dhaca iyaga dembigana ilaahay uu kaga ridaa wixii ku hadhay darajana ilaahay ugu dallacaa marka dadkaa xumi wixii ay sameeyeen haddii duulduul ka soo gaadho ama iyagaba musiibadii wada gaadho ilaahay baa ku darajaynaya xadiid saxiixa oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim ku sugan waxay warinaysa xaaskiisii zaynab bintu jaxsh ayaa nebigu wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka ummaddan oo iska soconaysa in dhulka lala goynayo su-aal bay weydiisay saxaabiyadii oo waxay tihi yaa rasuula allahi anhlaku aw anahliku wa fiina saalixuun oo miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaaba nagu jiraan dad badan oo fiican ee ummaddu mar walba xumaan iskuma raacdo rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam nacam idaa kahura alkhabath ha waa la yskiin raacinayaa marka dadxunku uu bato khabadkaasi haddii dad lagu macneeyo wey ila khabiidka waxa xunna waa la ydhaa camalka xun dadka xunna waa la ydhaa haddii dadka xumi bato ama xumaantuma ay badato intan kalena imtixaan baa looga dhigayaao waa la iswada raacinayaa waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya buu ilahay yihi balaayo kuwa sameeyo qura aan ku egaanayn waxaynu ogsoonnaho waxaygu ina barayaa taata ka soo horjeedo ah inaynu daacada ilaahay badinno oo diinta ilaahay aynu heellanna oo ilaahay aynu ka amar qaadanayno inaynu wanaag adduunyo iyo wanaag aakhiraba ku helayno waan low istaqaamuu calaa dariiqati la asqaynaahum maa-an gadaqa dadku hadday tubta fiican ku toosnaan lahaayeen raxmaadkuba kama kala go-een baa ilahay walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard cir iyo dhulba barakooyinkiiyo khayrka ayaa isqabsan lahaa hadday wanaagga ilaahay ka guddooman lahaayeen subxaana wa tacaala una mahadnaqi lahaayeen oo nicmadiisa ay badin lahaayeen xalku waxa weeye walaalayaal waa arkaynaa inaynu dee ilaahay iska dhaadhicin aynu isu ammaano maahee xaqiiqada qof waliba naftiisa haddaanu been sheegayn ama mujtamaceenna waynu arkaynaa waxaa dhiba jira xalku waxa weye ina ilaahay toobadkeena subxaana wa tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa ummadda iimaan kalea ilaahay u yeedho wuxuu leeyahy iimaanba a iska lahaateen oo ashahaadatenbe haddana dembigii waa badan yahay ilaahay u toobad keena toobadana shardi baa ku xidhane toobad nasuuxa oo wanaagsan oo saafiya casaa rabbukum an yukafira cankum sayi-aatikum ilaahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay dembigiinna markaa uu idinka dhaafi aa gasheen wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar jannooyin qiimo badan oo biyuhu hoos qulqulayaan iyo caanaha iyo malabka ayaa ilaahay idin siin doonaa waxaa intaasii raaco walaalayaal dee waxani waa waxaa adduunyada ku faafayo dadkeennii ka yimid baaba iman karo oo dee aynu ka qaadi karnaa marka talada dhakhaatiirteennu ay bixinayaanna waxa weeye ugu horeynba dhowrkan arrimood ama shantan arrimood ta koobaad waa tii ilaahay uuna faray ta koobaad oo ah nadaafadda inaynu ku dadaalo ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badane qalbiga nadiifiya xaggooda hoosay nadiifiyaan nadaafadda dushana way jecel yihiin oo dahaaraday ku dadaalaan deegaankooda dharkooda jidhkooda intaba sidaa daraaddeed waxaynu aada u badinaynaa weysada
wamaa adraaka ma alwuduu weysada maxaad ka taqaanaa nebigu inagu waaniyey sala allahu calayhi wasalam in la cusboonaysiiyo weysada cusboonaysiintiisa salaad walba in loo weysaysto adigoo iska weyse qabaa inaad weysaysato xubnaha laga weysaysanayo macnaha marka laga hadlayo weysada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee wiqaayada sameeya lagu ilaaliyo cudurrada ayay ka mid tahay weysadu oo waxaynu arkaynaa 4 meelood ama 5 meelood ee boodhka iyo bacadka iyo bakteeriyada waajaha ee la kulma baa laga weysaystaa labada gacmood labada cagood iyo kurtii la madaxii la meydhay wajigii la meydhay sankii afkii dhagihii wixii oo dhan kurtay ku yaalaan intaasa aynu had iyo jeer boodhka iyo wixii soo duulaya iyo waxa la wixii ibanaya oo dhan intaasay naga marayaan intii baa lagu 5 jeer ama ka badan marka sunna weysis de sunna tukanaysana weeraan faradkii 5 jeer weysisa baa lagu dad weysadii cusboonaysiinayso nabiguna saas u ahaa calayhi salaatu wasalaam intu salaadaha isku weyse qabi jiro weyse qab ku tukan jiray may badnayn kaana yujaddidu alwuduu weysada uu cusboonaysiin jiray marka arrintaasina cilmiyan waa mid la soo taabtay hadda inay qayb weyn ka hortaga shayga la yidhaahdo cudurrada qayb weyn ka tahay weysadu taas waa midda labaad marka aynu had iyo jeer qofku dee uu hindhisayo ama qufacayo inuu iyadana ku dadaalo waxaan yara afka lagu nadiifiyo saftiga ama hadduu waayo maradiisa inuu ku daboolo waanu ina baray nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam midkiin hadduu candhuuf tufaya buuhi maradiisa ha ku tufo waxaaga isu qab adiga ha kugu egaadaan dad kale ha gaadhsiini marka taasi macnaheed waxa wey haddaad masaajidka joogto iska tufi daaqadda ha ka tufine ku egow oo marada iyo saftiga iyabaad ku tufaysa sidoo kale waxyaabaha aadka u muhiimkaa waxaa ka mid a markaynu xamaamka ka soo baxno ama aynu doonnaba inaynu wax cunno inaynu faraxalanno nabiyullaahi maxamed baa inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam fariin caafimaad casrigan ha laga dhigo laakiin rasuulkaaba inoogu horreeyey oo aynu kaga dayanaynaa markuu xamaamka ka soo baxo muxuu samayn jiray nebigu ciidduu faraha gelin jiray gacanta ku istijooday gacantiisa shariifka ah sala allahu calayhi wasalam oon balaayo iyo bakteriya lahayn haddana si ummadda tusaale u noqdo ciid istarala ama nadiifa ayuu sidaa u gelinayaa markaasuu ku xoqaya waxyaabaha wax lagu dilana dee ciiddaa ugu mudan sida dee loo yidhiba ayga nijaastiisii ciidda ha lagu maydho marka ciidda iyo biyuhu gacantaa ku maydhaya marka wixii aad hesho caruurta in la baro oo ehelka la baro oo jaariyadaha la baro oo shaqaalaha la baro cudurrada wareeg oo dhan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyo ilaahay baa ilaaliye waxaa ka mid a nadaafadda ay ka mid tahay gacmahoo la ilaaliyo qofka meelaha had iyo jeer xamaamada iyo waa inay yaallaan waxa wax lagu nadiifiyaa saabuunta shaambooga waxyaabahan qaalica ahe jaraa cudurrada wareega taasina aad bay muhiim u tahay iyo qofku marka uu had iyo jeer raashinka cunayana inuu faraxasho iyana aad bay muhiim u tahay waxaa ka mid a qofku marka gacantiisa meelo badan uu marmariyo inaanu isleeyahay gacanta waxbay soo qaata ama nadiif maaha inaanu sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelihii manaafidahayd daldaloolay ila waa wada xasaasi dhulkaas in aanu qofku marmarinin ee gacanta uu ka ilaaliyo waxaa intaasii raaca uu qofku hadduu dee isdareemo inuu xanuunsanayo wax walba uu noqon karaa xanuunku kan dee faafana waa noqon karaa inuu goobaha caafimaadka si dhaqsaa ula xidhiidho 5 arrimoodba aad bay muhiim u yihiin oo sharcigeennuna uu inoo sheegay waana lagu talinaya had iyo jeer mar walbana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj waxaa la yidhaahda ka hortagga oo islaamkeennu uu ina farayo wuu ka fiican yahay ka dabatag oo ah shayga la yidhaahda isdaaweynta xataa karantiimayntii baa sharcigeennu ina farayoo nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduu noo jideeyey meel haddii daacuun ka dhacabu inta ku jirtaanayay ka bixi cid dabadda ka soo gashaanayay jirin waa